midowga Yurub ayaa maanta oo Jimcaha si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ansixiyay cunaqabatayntii lixaad oo ka dhan ah maamulka Ruushka iyo hogaaminta madaxweyne Putin. Tani docda kale waxay iftiiminaysaa in wali uu socdo duulaanka Ruushka ee Ukraine. 100 maalmood ayuu afka sii gelinayaa duulaanka tooska ah ee Moscow ay ku hayso Kiev. xirmada maanta waxay kordhinaysaa xadidaadda awoodda maamulka Putin ee ah inay maalgeliyaan dagaalka iyadoo la soo saarayo cunaqabatayn dhaqaale oo dheeri ah. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa sheegay in go'aanka golaha uu yahay mid muhiim ah oo weli dhabarjab ku ah qorshaha Putin ee burburinta dalka Ukraine. xirmadan ayaa waxaa ka mid ah mamnuucidda saliidda Ruushka laga soo dhoofiyo iyadoo dalalka xubnaha ka ah midowga Yurubna la siinayo muddo 6 bilood ah inay meesha uga saaraan saliidda cayriinka ah iyo 8 bilood si ay u dhimaan batroolka kale ee la sifeeyey. saliidda dhuumaha si kumeel gaar ah ayaa looga dhaafay cunaqabataynta saliidda taasoo ah tanaasulka ugu weyn ee Hungary. intaa waxaa dheer Bulgaria iyo Croatia ayaa sidoo kale la siiyay hoos u dhac dheeraad oo ku saabsan soo dejinta saliidda badda iyo saliidda gaaska faakuumka. marka loo eego xisaabinta guddiga Yurub cunaqabatayntu waxay dhimi doontaa 92% ganacsiga saliidda Ruushka ee ku biiray ururka dhamaadka sanadkan. go'aanka ayaa kordhinaya liiska alaabada la isticmaalo iyo tiknoolajiyadda aan loo ogolayn in loo dhoofiyo Ruushka maadaama ay taageeri karaan ciidamada iyo waaxda difaaca. xirmadan cunaqabatayntu waxay sidoo kale ka saaraysaa bangiga ugu weyn ee Ruushka ee nidaamka lacag bixinta caalamiga ah iyo sidoo kale bangiga kreditka ee Moscow, bangiga beeraha Ruushka iyo bangiga Belarusiyaanka ee horumarinta iyo dib u dhiska. ururka ayaa sidoo kale liiska warbaahinta laga mamnuucay midowga Yurub ku daray 3 idaacadood oo cusub oo ay leedahay dawladda Ruushka. marka loo eego go'aanka xarumahani waa aalado si loo maareeyo macluumaadka loona hormariyo macluumaadka qaldan ee ku saabsan duulaanka Ukraine oo ay ku jiraan dacaayad iyadoo ujeedadu tahay in qalqal la geliyo dalalka dariska la Ruushka iyo midowga Yurub iyo guud ahaan wadamada xubnaha ka ah. midowga Yurub ayaa sidoo kale cunaqabatayn saaraya kuwa mas'uulka ka ah xasuuqii ka dhacay Buga iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ku yaala dalka Ukraine sida uu sheegay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub. xubnaha maamulka militariga shakhsiyaadka kale ee taageera dagaalka dadka hormuudka u ah ganacsatada iyo xubnaha qoyskooda iyo sidoo kale saraakiisha aqalka looga aramiyo Ruushka ayaa lagu ciqaabayaa mamnuucid la xiriirta safarka iyo xanibaadda hantidooda gaarka ah. kadib muddo bil ah oo wada hadallada ay ku jireen hogaamiyaasha midowga Yurub waxay gaareen heshiis siyaasadeed oo ku saabsan tilaabooyinka lixaad ee xadidan ee shirmadaxeedkoodii ugu dambeeyay. xirmadan cusub ayaa waxay kaabaysaa cunaqabatayntii hore ee lagu bartilmaamaysanayay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov iyo kuwa kale. sidoo kale waxay mamnuucday dhoofinta badeecadaha raaxada iyo dhoofinta dhuxusha. midowga Yurub waxa uu Ukraine u qoondeeyay lacag dhan 2 bilyan oo euro una dhiganta 2.15 bilyan oo ah gargaar militari waxaana uu ururiyay in ka badan 4 bilyan oo euro oo kaalmo dhaqaale ah gargaar bini'aadantinimo iyo taageero uu siiyo dalalka midowga Yurub ee martigeliya qaxootiga ka imaanaya Ukraine tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay 24 bishii February ee sanadkan 2022. kooxdan ayaa sidoo kale qarka u saaran inay u qoondeeyaan 9 bilyan oo euro oo deyn ah oo ay sidoo kale siinayaan dalka Ukraine. 100 maalmood ayuu jirsaday duulaan weerarka Moscow ee Kiev. wali uma muuqdaan caalamka qorshe suuragal ka dhigi karaya in Putin iyo maamulkiisa ay ku joojiyaan duulaanka ay ku hayaan dalka ay dariska yihiin ee Ukraine. sidaas oo ay tahayna maamulka madaxweyne Putin abaabul hor leh iyo maalgelin baaxad leh ayuu ku wadaa cutubiyadiisa gaarka ee militariga si ay guulo wax ku ool ah uga soo hoyaan duulaanka ay ku hayaan dalka Ukraine.